qorayaan Naciimo qabiilista tahay anu qabiilista ahay qabiilka waa la tarcaarifo maal dhahaa ما ninka يسكت ii مركب saaran ضد waxaan ضد ku بكوي taageeray ضد qabyaalad بكوي cad baan ku taageeray aan geed ugu soo gabanin qof ها walba صح og yahay because anu team farmaajan ahaa kadibna waa iskala wareejiyay 90 degree markaan arkay markaasna waxaan koray ninkaasaan koray oo ها xiniis koray marka ilma adeerayaal anu وعين qabyaalad cad baan ninkan ku taageeray laakiin anoo saas ku dhahaya haddana maanta markii qof هدنا la doorto ها madaxweyne kale la doorto asaga aan ahayn waxaan وعين diyaar u كاس ahay inaan ما la sarabeegareeyo يقصدها oo sug aan dhameeye oo هاي 4 sano هي aan wato asaga saarnaado aan go'aan ku gaaray madaxweynihii la doortaa madaxweyne ii ah laakiin ninkaas Soomaaliya hadda idin sheegaya qabyaalad cad baa ku taageeray ku soco farxiya وجيسينimo wey waa هي geesinimo sax ومحسنتا نعيمة صح weeye qofku mowqifkiisa inuu cadeeyo horta qarannimo iyo wax qof la saarto meel oo aad qofka aad iska saaratid wax isquseeyo maahan qofkuna mowqifkiisa uu bedeli karaa ama qof uu taageeri karaa marka xasan laakiin ani waxa uga duwanahay dadka kale oo taageerayaasha ma taqaan farxiyo ها ani musharax kale ma caynayo صح oo macnaha صح farmaajo ma jaaifeynayo xasan عادي sheekh ma jaaifeynayo sheekh jamaal ma jaaifeynayo way iga nabadgelayaan farmaajo mobilkeedu u saaran yahay shaashada mobilkeedu u saaran yahay واساس weeyaan because waa madaxweynaha wadanka wali ma dhicin ها waa madaxweynaha wadanka laakiin ma ila aragteen wiil xalay live ku jira idinkoo raaliyaana kula daartay walaal waxay badalka laga siiyaa idinkun baa hadlaya ها dhib male walaal dhiikar baan qabaa dhageysta marka nin xalay live ku jiran daawani waa nin weyn oo ilaahay abuuray madaxa tima kule live ku jira wuxuu leeyahay wareega koobaad buu yiri meeka labaad buu yiri farmaajo ma soo galiyo hadduu aqli leeyahay buu yiri intuu hadda la hadla dadka ha yiraahdo aan madaxtooyada uga baxa buu yiri maxaa la yiraahdaa ii sheeg aan nabad uga baxa buu yiri oo hala idiro dhimashada iyo nolosha ilaahay gacantiisa ku jiraan laakiin qof weyn markaa tahay waxaa lagu hadlaa wuxuu yani bini aadanka anaga caruur manin markaad live ku jirto iska bacaa leedahay bacaa rabnaa Chinese baa iska daaran karaa inta TV-ga gasho horta mid baan kuu sheegaya dhageyso ninkaas haddadan qalad ma laha ma fahmi kartid adduunka Mareykanka meel kasta Yurub haddaad tagtid waxaa jira dad wariyayaal oo la dhaho saadaaliya siyaasadda saadaasha say u eg tahay marka aragnay last 5 years mucaaradka farmaajo baarlamaanka iyo xiriirka ka dhaxeeya farmaajo heer ku gaarsiisan yahay xildhibaanadii qabiilkiisa ahaa oo laga keenay Garbahare meesha ay ku dambeeyaan iyo xaaladooda situationkeeda sida u socono haddaysa last minute-ka wax isbedelin ani waxaan ku jiraa dadka farmaajo aaminsan inuu soo wareega labaad soo gaareen maya horta xilka ilaahay baa bixiya adaa sida aaminsan laakiin mid baan ku ogahay anuu maxamed cabdullaahi farmaajo hal mid aan ku aqaana halka mid aan ku aqaano waxay tahay waa nin nasiib badan صح nasiibka iyo horta ma ogtaa waxaan lagu sheegaa waa bit soo moogta waxa dhici karta dukaan aan la gelin iridiisa shay ka soo gadanaysaa waxa arkaysa dukaankii la isku dilayaa arkaysaa next day طبعا waa qofkaasaa laki wata shayga ka gatay maxamed cabdullaahi farmaajo waa nin nasiib badan maalin hoodal u dhashay waxa dhici karta nasiibkiisu inuu u hiiliyo صح yesterday buu u hiiliyay moogta teeda kale hal wuxuu uga duwan yahay musharaxiinta kale jirta maxamed cabdullaahi farmaajo maxamed cabdullaahi farmaajo qalbiyada dadka uu degan yahay anu wareeg saddexaad inuu ku guuleysanayaan qalbiyada dadka uu hantiyey qofka qalbiyada dadka hantiyena dhedheel ma aha because intaasoo qof oo ehlu salaada oo muslimiin ah ayuu qalbigooda degan yahay u ducaynaya moogta marka waxyaabahaas haddaysa caawinin farmaajo xildhibaanna ma rabo baarlamaanna ma rabo musharaxna ma rabo shacabkii baa raba farmaajo shacabka in la isla fahmo dabcan wax walba horta waa nasiib ama waxa weeyaan ninba waxa la yidhi imika walaal si farxiya nin halkaan idinka dhex galaan yaro xoojiyo anu waxaan aaminsanahay tusaale ahaan maanta Soomaaliya waxay u baahan tahay inaan farmaajo la bedelin sababtoo ah dalka uu soo maamulay wax badan buu qabtay haykalkii dawladnimo soo celiyay ciidamadii buu dhisay badii buu soo celiyay hawadii buu soo celiyay cadowgii Soomaaliyeed oo dhan buu meel ku wada xidhay
cid allaaliyo ciddii dalkeena dhibaato ku haysay ayuu madaxa kaga wada istaagay isagoo diblomaasiyadiisa wata oo qoslaya oo dhoola cadaynaya waxaan aaminsanahay Soomaaliya inay farmaajo u sii baahan tahay waa midda labaad waxaa iswada haysto oo dhan markaan baadhis ku sameeyey waxaan ogaaday inay fiilada wada joogaan dhammaantood oo farmaajo garabkiisa wada yihiin waxaan hubaa saddexda wareeg labada wareega hore haddii la gaadho wareega koobaad farmaajo ciyaarta daawadu ka noqon xoogaa waa heli cod laakiin si toosa waxaa isu bedelaya doorashada marka saddexaad boqolkiiba boqol waxaan aaminsanay farmaajo inuu madaxweyne noqonayo taan anigu aaminsanahay weyn waa kaa qaad macaani waan idinka sii baxayaa sii sheekaystan maya ma waxaa aaminsan tahay suldaan farmaajo again miyaa aaminsan tahay farmaajo mar labaad farmaajo aaminsan tahay suldaano anigu taasaan aaminsanay inuu farmaajo mar labaad noqonayo madaxweyne sababtoo ah xabiibul malaayiin waxyaabahan eegay waxaa ka mid ah aniga sidoo kale aan ku riyooday xataa halka adiga runtaba soo jeedka runku ma taqaanida aamus waayo waxaan eegay dhinac walbaan ka eegay dalkaan eegay dadkaan eegay yacni waa madaxweynaha keliya ee aan ogaaday inuu albaabkiisu furan yahay oo haddaan saaka baxo aan dhado iminkaan farmaajo doonaya hadda aan saacad gudaheed kula kulmi karayo islaanta hadduuna qabin amiir horta intaada tegina inaan duceeyo rabaa xilli dambe aniga ii tahay waxay ii tahay 5 in the morning 9 daqiiqa iiga dhiman salaada subax baa sugaya waa duceynayaa waxaan ku duceynayaa ilaahayow rabbiyow raxmaanow wadankeeni waxaa daashaday qabiil including me wadankeeni dadka qabyaalad bay u kala baxeen qofka xataa qabiilka aqoonu asoo faraxsan Soomaali soo dhexgala xoog bay u barayaan si qabiilkiisa ugu riixayaan qofkii waxa arkaysa aaqirka intuu xabad raacdinayo war cidaas ay maxay ka qaadayaan ummadii naftii baa loo keenay ilaahu rabbiyo raxmaano nin qeyr qaba oo ummadda qulubahooda isku soo dhaweeya oo ummadda ilaahay nabad Soomaaliya u dabaala oo farmaajo waxtarkiisii inuu ka sii fiican yahay ma ogiye aan ka liidan hadduu farmaajo qeyrka noogu jiro oo ilaahu rabbiyo raxmaano Soomaali qeyrka farmaajo ugu jiro u soo celi hadduusan qeyr ugu jirin ilaahu rabbiyo raxmaano oo mid kaloo ka qeyr badan aa ogtahayna kaas kaloo ka qeyr badan madaxweyne nooga dhig rabbiyo raxmaano ilaahu ummadda qulubahooda isku soo dhawee ilaahu aniga ka mid qabiilka naga madoobee ilaahu kuwii baray inkaar ku rid waayo aniga surmindi baa iska meesha marka soo galay ummadda inaan ka masuulsiya u soo galay ayaga surminda qalan joker waa ma jeerteen waa sharmuuto daarooda baba ayaga bar qabiilka ilaahu rabbiyo raxmaan ummadda ka qabo ummadda dadka qabiilka baraya aad iyo aad aamiin khayr badan baa idin rajeynaya waa xilli dambe naciimo joker horta aad baa ku salaamay aad iyo aad bad mahadsantihiin aniguna waan salaamayaa dhammaantiinna waxaan idin rajeynayaa guul naciimo insha allah guul ما يوارد سلام يا خير بدنا إدين رجينا وانيجي سيدك يعني حل دبيتها هايون معاني وناكسن عاود الله يفسوق عشان سركنا إن شاء الله كسر كيف على صاحب بيو إسكده يلا يفكر إسكده بريه وانكو عاجز سيدي قبيل للوها هي قبيل بانكو حيقان إسكده أدو قبيل بماذا هنا أصحابته هنا السلام waan kaa qaadan soo dhowo waa dhow yaro tanu marixan baan ay ka wada haye farmaajan waa inaan isku laabto tripkan ma liigu raacsan yahay horta wax yar horta intaadan bilaabin dhegeys hal mar waa dhegeysta wax yar dhegeyso wax yar heesta dhegeyso waayo walaal dhigo fura